xalayto abaro 12 ayaa waxaa soo bilowday raxmad alle roobab aad u fara badan ayaa runtii maaragtay ka da'ay magaalada Beledweyne ama guud ahaanba gobolka taasoo sababtay inay soo rogmadaan togaga iyo waadiyaasha maadaama webigu uu buuxo oo isaga naftirkiisa aan waayahan ka baqaynay inuu ku fataho magaalada xareedii iyo biyihii runtii maaragtay tiraha badnaa Allah subhanahu wa ta'ala uu ku nimcaystay deegaanadan ama gobolkan Hiiraan waxa ay xalay sababeen runtii in magaalada Beledweyne inta ugu badan xaafadda ugu weyn ee Kooshin runtii aad looga barakaco naf go'day ma jirto balse maal badbaaday ayaasan jirin runtii dadkii masaakiinta ahaa dadkii deganaa halka iyagoo ilmahooda gacmaha haysto hadayba ilmaha la soo bixeen ayay mahadiid joogaan oo ay alla ugu mahad celinayaan ayay tuban yihiin banaanka ama duleedka magaalada Beledweyne oo xalay iyo hadda oo aan kula hadlayo ay ku daad gurmayaan oo ay ku socdaan marka de wuxuu alla keeno waa un ku shukri dadweynaha Soomaaliyeedna dadaal ayaa laga rabaa inay isku soo duceeyaan imise xaafadood ayay saameeyeen roobka intan aniga aan kormeeray oo maaragtay xalay ilaa 2 saac ilaa 9 saac waxaan soo daad guraynay dad maaragtay runtii biyo ay si lama filaan ah ay ku weerareen oo ay ku hareereeyeen xaafadaha hadda aniga xalay aan xooga aan saaray waxa waaye xaafadda Kooshin gaar ahaan ku tiimbo oo u nugul maaragtay mar walba biyo baxada iyo daadadka noocan oo kale tooda u nugul taas ayaan xooga saaray kulli xaafadaha kalena way galeen xareedu meel walba way ku soo rogmadeen maadaama sidaad ogtahay magaaladan buura ayaa ku hareeraysan roobku hadduu badan yahayna dabcan waa dareemi kartaa buurahaasi in biyaha ay soo rogayaan webigiina difaaruq ma ahan oo de wixii biyaha ku sii dhacaa hisiimo gudbinayo oo buuxa taas ayaa marka sababta keentay in xareedii oo banaanka taalo ku soo gaaraan togagii ama waadiyaashii oo biyo sido webigii biyihii de u gudbi lahaayeenna waa uu buuxa marka iscashigaas ayaa waxa ka dhalatay inay barakacaan badankood dadka degan xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne marka xaafadda biyaha ku jiro iyo biyaha webiga ma isgaareen mise weli waxba u dhaxeeyo waa isgaareen oo markiiba waa isgaareen kaas webigu waa buuxiyaaba isagaaba laga cabsi qabaa marar badan inuu soo butaaco oo ma karkaarada oo soo jabsado isagoo sidaas ayaa waxa ku soo aaday togagii ama waadiyaashii oo biyo sido dabcan meel maaragtay biyo xamili karta ama wadi karto inay ku soo aadaan ayaa fiicnaaday laakiin waa ay buuxaan oo sidaas ay isku ceshteen deetana dib ayay ugu laabteen xaafadaha magaalada maadaama aad sheegtay khasaaro nafeed ilaa had inaysan jirin ama aadan arkin khasaaraha hantiyadeed bal noo sharax qaabka ay markaas wax u gaareen walaalo mahadsan tahay anagu maaragtay intii aan ka warhayno jiingadihii iyo dadka guryaha ciishada ama maaragtay guryaha burcadbeedka loo yaqaano ama guryaha cariishka loo yaqaano deganaa inta badan albaabadii iyo dirbigii jiingada ay ka dhigteen yani maaragtay ay gabaadka ay ka dhiganayeen waa ay la tageen de wax dadkii xaafadda deganaa dhammaantood qofkii nasiib leh ayaa caruurtiisa gacanta soo qabsado kaliya wax de agabkay wax ku cunaayeen ama ay ku karsanayeen raashinkii de hadday haystaan kuwanan haysan maba haystaan kuwii haysto raashinkii ay quudan lahaayeen wixii oo dhan waxa qaaday dadadka amaba halkii ku qooyay oo galay marka waxaan ugu daran dadka runtii maaragtay nugul kaamamka ku jiro kuwaas oo runtii ayagoo markii horeba duruufo kala duwan la daala dhacayay ay saameeyeen dadadkaas ku soo rogmaday magaalada dadka aad tilmaantay xaafadaas ku nool noloshooda
waa sidee ma dad ganacsatay u badan yihiin ma dad iska danyar xaafaddu goob ganacsi miyay ahayd mise xaafadaha iska caadiga oo ay dadku deganaayeen bay ahayd wallahi waa mahadsantahay walaalkay runtii dadku waa isku jireen dad ladan iyo dad maaragtay sabool oo waxba haysan intaba waa iskugu jireen balse xaafadda ku tiimbo waxay u badan tahay xaafad dad maaragtay nugul ay degan yihiin ayay u badan tahay ganacsiga dukaan yar oo maaragtay wax yar lagu iibiyo way ku yaaleen laakiin meel maaragtay xaafada ayay u badan tahay inta badanna ay degan yihiin dad nugul ay degan yihiin marka dhammaantoodna xalay waxa ay ku bariyeen laamiga waxaanba ka soo gaarsiinay inaan laamiga aan keenno qaarkoodna ay ayagu iskeenaan inta badanna hadda waxay usii ruqaansadeen oon ilaa saakay gawaari fudfudud aan ugu diyaarinay annaga ka maamul ahaan inay tagaan ay gabaadsadaan deegaanka Ceel Jaalle oo mar walba oo biibaha soo baxdo dadka reer beledweyne ee micin bidaan waa gartay marka laga soo tago in ay roobabkaas iyo dhibaatooyinkaas hadda soo kordheen ama raxmaddii eebe ma jira gurmadyo kala duwan dadkaas loo sameynayo si xaaladooda ama dadka nugul loola tacaalo wallahi dadka waxaan ugu baaqnay in la isgarab istaago dadkii qof walbaaba qofkii u dhow inuu caawiyo uu garab qabto uu saacido waa ay jirtaa laakiin gurmad ama hay-adeed ama dowladeed uu maaragtay si toos aan u sheegi karnoo jiraahay ma jiro keliya waxaa xalay annagu ka maamul ahaan aan garab siinoon saacidnay carruurta go'doonsan kuwaan ka soo dejinay jeengada korka laga saaray oo aan soo jeersiinay biyaha ayaga iyo inta la midka ahna weli waxay u baahan yihiin gurmad maaragtay bini'aadanimo ayay u baahan yihiin mana la gaarin ba xilligii hadda hay-aduhu ay si degdeg ah wax u garab istaagi lahaayeen dowladdana baaqaan u dirnay inay kasoo jawaabi doontaan filayna hadduu ilaahay raalli ka dhigo intii ka horena dadkaas sidii ay ku noolaan lahaayeen oo biyahooda iyo cuntadooda iyo waxyaabahooda wixii aan kari karno sidaan ku gaarsiin lahaynay ayaan annaga hadda xilligan u fadhinaa oon qorsheynayna ugu dambeyn fariintaada waa fariintaydu waxay tahay dadka inay is-saacidaan isgarab siiyaan markay jirto duruufo maaragtay noocan oo kaletood ah in maaragtay la isgarab qabto haddee in la isgarab istaago oo la iscaawiyana waa wax muhiim ah marka waxaan leeyahay oo fariintayda kusoo goraanidayaa qof walba qofkii uu ka itaal roon yahay ha badbaadiyo allah ayaa wax badbaadiye garabka ha qabto ha saacida ayaan leeyahay ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka Yurub xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha